meelaan marin male ilaahay baa idinku dhaari rasuulkiisa idinku dhaari ilmeygiyaa layla hadalsii oo si fiican ha layla hadalsii oo meeshay ku nool yihiin idinkaay taqaaniin in maalin laga qaadaan ogaliya qadar baa loo qaaday meel kale ma og waa 3 wiil oo min 19 laba jid midna 18 nuur daahir nuur 18 sano jira magacayga waxaa la yidhaha Ruqayya Maxamed Cabdille magaca Ruqayya sheekay waxaan ka cabanayaa 2 wiil anigu aan dhalay midaan habaryar oo ahay ayaa iga maqan markii igu dambeysay anoo marka jooga ayay ila soo hadleen waxay dhaheen hooyo waxaan aadaynaa dalka qadar ayaan u soconaa difaaca dalka ayaan u soconaa war waa maxay wax saasaan u soconaa hooyo nacafi waa baxaynaa ogowsa hooyo inaan baxnay waayahay sidaan aan u joogay oon dhegta igu taagnaa la wiilashaad goormay kula soo hadlayaan ayaa waxaa la yidhi 12 wiil ayaa la keenay xalanaan taga waan ka waayay elboorkaa la keenaa le waa ka waayay isbitaal digfeer baa la keenay waa ka waayay isbitaal madiina la yidhi waa ka waayay waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhammaan baarlamaanka inay wiilashaadii sida ugu dhaqsiyaha badan ay ila hadalsiiyaan ma hoydo oo ma harsado oo wadnaha ay go'an iyo wiil habaryar u ahay baa iga maqan laba anigu aan dhalay mid habar u ahay iga maqan ma hoydo mana harsado qalbiga dhan baa i horahay baarlamaanka iyo madaxweynaha wasiirada dhammaan waxaan ka codsanayaa inay wiilashada ila soo hadalsiiyaan meeshay jiraan ay ii sheegaan taasaan codsanaya waxaan hooyo Soomaaliya oo dhibaataysan wiilashada inay qadar jiraan oo maaragtay xaqiiqo ku yihiin inay Eritrea jiraan ma u kala heshaa wax xaqiiqo wax xaqiiqo oo aan hayo midna ma laha qadar baan aadaynaa bay dhahan Eritrea kuma ogi qadar baan ku ogaa sidii la ii sheegay oo nimankii la socday oo madaxda qaar ka mid ay dhahan wiilash waxa loo qaaday qadar baa loo qaaday iridda maalinkii la qaaday baan imid waa la iga sii deyntiday iridda anoo raba inaan wiilash la hadlo oon arko waa la ii diiday nimanka ciidanka banaanka jooga ii diiday ma galaysid yiraahdeen iriddaas waxay ku taalaa maama Qadiijo imse bilood ama maalmood ka maqan yihiin waxay iga maqan yihiin 2 bilood iyo 5 2 bilood iyo 6 iyo 17 bari bay iga maqan yihiin wax hadal iyo warar kama hayo sida aad ku soo barbaarisay ilmahaas sida ku soo korisay adiga xaaladaada ma dhabnago wiilashaas waxaan ku soo koriyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ba xaaladda waa la socota wadanka sida ahayd aaba ilma kun adeer ilma kun awow ilma kun cidna dugsi sare midna ka baxay midna dugsi sare uu ku jiray galaaskii 3aad oo dugsi sare ayuu ku jiray form 4 bis baa u dhimana وفهمت انت سنه ayaa la soo rafaaday maanta markaan la waxay ku qabanayaan in la yiraahdo qaar baa la qariyo meeshaan bay is galeen xalanay ku jira xaq dawladda in committee ka bixisaan sugaa intaas dhigaa ii taagna waxaan la goormay ka bixin doonto goormay dadweynaha la soo hadli doonto goormay dhihi doonto war waxaas ma jiraan iyo waa jiraan iyo meedkiina hooda goormay dhihi doonto ya waxaan dadweynaha dadka ummadda Soomaaliyeed dhan aan ka codsanayaa waxay maqlaayoo inay wiilasha si degdeg ah la hadalsiiyo oo ogaado inay nool yihiin hooyo waxa caruur ka maqantaan wadnihii baa gubanay oo beerka xanuuna waa dareemi kartaa hooyo ilmo ka maqan yihiin habeen barkii inta iska baxaan waxaan raadinayaa iyagii magacyadooda la wadaagsan Kamaal Daahir Nuur iyo Kamaal Daahir Nuur waa laba daado isku xigtay Ibrahim Aadan ولا شيء بعد شمس محمد عبد الله أنا رقية محمد عبد الله وإسرائيل سبت أحد نسك ديارة صارنا يبلا إيشيء يروح وحان هاي المال هدي الله بحضر إنه ولا صراحة الله تلفون كاجا وشاك ده تلفون كي واشن 8 سديد صدن يشن كنتن يسديد مركنا وعلي تلفون كي واشن 8 سديد صدن يشن كنتن يسديد تلفونكي واشن 8 8 55 ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dawlad ra'iisul wasaaraha madaxweynaha baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed bay u taagan yihiin dhagaha naga furaysa hooyo beer ku maqan yahan hooyo aan seexan baan ameenka ma arsado waa soo taaganahay ilaahay baan ku dhaar rasuulkiisa aan ku dhaaray meel ay jira ilaa hadalsi hal mar hadii la ilaa hadalsi waa gab ilaa ونردلا قلبي قايد دقيلا
baarlamaanka hadday ummadda Soomaali u taagay waxaan ka codsanay inay ila hadalsiiyaan ilmahayga hooyo baabaan hooyo dhibaataysan baan habeenkii waa hor yimaadaan anoo la hadlaya arka waa eber gooshaa ka raadiya waa eber sariirteed markaa galo waa qaracab waa meelaana marin male ilaahay baa idinku dhaari rasuulkiisa aa idinku dhaari ilmahayga yaa layla hadalsiiy oo si fiican ha layla hadalsiiy oo meeshay ku nool yihiin idinkaay taqaaniin in maalin laga qaadaan ogaaliya qadar baa loo qaaday meel kale ma og waa 3 wiil oo mil 19 laba iyo jid midna 18 jir nuur daahir nuur 18 sano jira Allah Allah jangan buat kegeurisa fakir mana pun boleh ya nolosha adduunka waxay taraysa male nolol adduunya waxay taraysa wallahi inaysan nololay tarin ilaa ciyaalkaygaan ka habeenkii waa raaraadiyaa waa waaya markaasa waxaan arkaa inaa hurdo